dayuuradaha dagaalka aan duuliyaha lahayn ee Turkiga Bayraktar ayaa si guul ah ku soo dhameystiray 420,000 oo saacadood oo duulimaad ah. Shabakadda M50 oo ku takhasustay warshadaha difaaca Turkiga ayaa warbixinteeda daaha kaga rogtay in dhammaan dayuuradaha Bayraktar TB2 ee hubaysan ee aan cidina wadin ee adeega ku jira ay ku guuleysteen inay dhammaystiraan 420,000 oo saacadood oo duulimaad ah. iyadoo qandaraasyada dhoofinteeda lala saxiixday 16 wadan sida shabakadu ka soo warisay maamulaha guud ee sharikadda Baykar Saljuq Bayraktar. Saljuq ayaa intaasi ku daray waxaan sidoo kale dhamaystirnay habraacii laga maarmaanka ahaa waxaana saxiixnay qandaraaskii ugu horeeyay ee dhoofinta diyaaradaha dagaalka ee Turkiga Bayraktar Kinjitiha. Saljuq Bayraktar ayaa intaasi sii raaciyay inay wareejin doonaan dhoofinta tirada diyaaradaha Bayraktar ee loo baahan yahay iyo nidaamyadooda dhulka. waxa uu carabka ku adkeeyay in sharikadda Baykar ay fulinayso dhammaan mashaariicdeeda kuwaas oo ku salaysan awoodaha maxalliga iyo in qaybaha dhoofinta ay ka helaan in ka badan 85% dakhliga sharikadda taasoo ka qayb qaadanaysa abuurista ilo cusub oo cilmi baaris iyo waxqabadyo horumarineed. Bayraktar ayaa muujiyay horumarka degdega ee warshadaha difaaca iyo qaybaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga sanadihii u dambeeyay isagoo cadeeyay in Turkigu uu noqday dalka koobaad ee wax soo saarka qiimaha leh sida baabuurta gaashaamaan, dayuuradaha, saldhigyada ciidamada badda, rasaasta iyo dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee loo dhoofiyo 169 wadan oo caalamka ah oo ay ku jiraan NATO iyo dalalka midowga Yurub.